maalintii loo asteeyay in maxkamadda cadaaladda adduunka ilaahay baa cadaalad gacanta ku haya aan ka sugeynay go'aankii kaba dambaysta ahaa ee badda Soomaaliyeed ee Kenya ku haysatay dacwadii inta muddo ay socotay maanta ayaa macnaha loo balansan yahay saacadu markii ay tahay 3 galabnimo ama 9 saac oo galabnimo waqtiga ay weesteen way ka soo hormari kartaa way ka hordhici kartaa haddaba maxaa idin asteysan waxa hadlay culimada diin fara badan oo Soomaaliyeed waxa hadashay ganacsatadii Soomaaliyeed ee ra'iisli iyagoo markaasi ka digaya in dibadbax ka dhan ah arrintaas badda ay ka dhacday xaafadda Isli walaalayaal ninka dhalinyarada ah ee maanta u hanqal taagaya in uu dibadbax sameeyo isagoo ku faraxsan in badda Soomaaliya loo xukmiyay isagoo ku faraxsan in uu dabaaldeg sameeyo ama uu dibadbax arrinta ugu faraxsan yahay uu sameeyo waxa la yahay wiilka dhalinyarada ma aanu fiirin hooyada Soomaaliyeed ee caloosheedu Isli dhaxtaal ee ganacsigeeda iyo hanti waxay haysatay halka isugu geysay qofkaasi ma aanu fiirin markii aad dibadbaxayso oo waliba aad ku dibadbaxayso bal aqliga nagu ha shaqeeyo wadanka Kenya la jooga Kenya joogta dawladii aad ku hoos nooleed oo waliba laga yaabo inaad sharci haysan oo allow sahal magaaladii aad ku joogtay markii aad tiraado Isla iyadii baan ku dibadbaxaya waxa ka iman kara qof walba oo Soomaaliyeed oo garaadkiisu macquul yahay oo u dareemi kara dhalinyaro kalena waxay yiraahdeen haddii kuwaas ay u dibadbaxaan badda Soomaaliya marka loo xukmiyo inaguna dibadbaxa mid ka soo horjeeda ayaa sameynaa kumaankaas dhalinyaro ee Soomaaliyeed ee markaa ku herdamaya xaafadda Isli dhaxdeeda maxaa ka soo bixi karo ma isweydiin isma aanan weydiin haddii aanan isweydiin waa in saacada muuqaalku uu ku soo gaaray aad isweydiisaa Soomaali waxay tiraahdaa geel u ciyaar arina u dhimasho wixii geel ciyaar la ah ba arina dhimasho iyo geeri u ah waa ogtihiin geelka intuu leeyahay dheerkiisa uu iska ciyaaraya laakiin ari hadduu soo agmar uu ku istaagaya arigana geeri bay u tahay isagana ciyaar bay u tahay idinka hadday idinka tahay damaashaad iyo orod idinka tahay ogow hooyo Soomaaliyeed baa caloosheedu banaan ka taala oo ganacsigeeda iyo hantideeda Isli dhex yaalan oo markasta ay suurtagal tahay in Mooriyaan doonays inay ka faa'iideysato arrinta ay ku soo doolaan oo hantideeda ay boobaan maxaad faa'iiday marka Soomaaliyeed u duushay Soomaaliyeed ku duushadana hooyo Soomaaliyeed bad ku duushay oo hantideeda halka dhex taala waya mid kale is weydiinay horta adigu dawladdan aleedoon ku mudaharaadaya ka xiro marka hore dalkeeda ooga tag wadan aan wadankeeda ahayn aad walba ugu sokeen Uganda aad halka ka soo mudaharad marka ugu sokeen wadanka Ethiopia oo diris la tahay aad halka ka soo mudaharad laakiin Isli oo xuduntii Soomaaliyeed ganacsigeedu u yeelay in aad tiraado Kenya kaga mudaharadaya waxa ka iman kara wad dareemi kartaan dhalinyarada Soomaaliyeed arrinta ku haminaya waxaan dhihi lahaa saacado yar baa ka dhiman xilligii ay ku dhawaaqi lahayd maxkamaddu go'aanka kaba dambaysta oo ay ka soo saartay arrinta ka feejignaada oo ha ka mid noqonina in hooyo Soomaaliyeed hantideeda si bilaash lagu aruursado ha ka mid noqonina hooyo Soomaaliyeed in lagu kufsado ha ka mid noqonina in gabar Soomaaliyeed adiga walaashaada ah si dhib yar oo nin arxan laawo ah oo ku dhibaateeyo ha ka mid noqon adigu sabab ha u noqon sabab adigu ha u noqon adiga oo xamaasadeysan oo xamaasadu kula tagtay ha u sababin oo sabab ha u noqon hooyo Soomaaliyeed si dhib yar in hantideeda lagu aruursado ha u noqon dhalinyaro fara badan baan arkayay oo sheeganaya inay yihiin wariyaal Soomaaliyeed oo bulshada Soomaaliyeed u soo gudbiya Sheekh Shakuul oo kamid ah ganacsatada Soomaaliyeed oo runtii isagoo ka qayb galay shirkii looga hadlayay arrimaha amniga wuxuu yiri waxaan ka cabsi qabnaa in dibadbaxyo dhalinyaradaas intay nagu sameeyaan hantidanada si bilaash lagu aruursado waa fulay sheekhu wuu cabsanaya intuu ka baxay saan wuu cabsanaya waa run oo calooshiisa banaanka taal hantidiisa banaanka taal inuu marka u cabsado uu yiraahdo war heede wadankan aan joogno wadanka Kenya dawladdan aan leenahay ku mudaharadeennana waa dawladda Kenya war hantidanada naga burburin inuu yiraahdo xaq buu leeyahay wuu calool hadlay qofkaas bal maanta u fiirso ciidamada saa ku waqdooban xaafadii Isli ciidamada lagu soo daadiyay 6 subaxnimo ilaa saacadaan idin la hadlayo ciidamada saa u dhaxdooban maxaa u sabab marka in ciidamadaas ay soo baxaan oo maanta yiraahdaan xaafadii Isli baan howlgal ka sameeynaa dibadbaxyaan ka hor istaagina dadka Soomaaliyeed waliba dhalinyarada Soomaaliyeed in ay dibadbaxaan baan ka hor istaagina inay yiraahdaan maxaa ugu qoos garanaysaa maanta waxa laga yaabaa dhalinyaro fara badan Isli way soo yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed ee xaafadii Isli ku nool way soo yihiin way soo yaqaanaan qofka maanta sharciga wadanka Kenya aan haysan oo raba saaka inuu 6 subaxnimo u kala shaqada ilan dhalinyaradu iska wada xamaashaani markuu arko askar wada koofi cas ah oo luuq walba qori la taagan markuu arko qofkaasi quutulyoonkiisi maanta uu raadsan lahaa yaa u sababaha ka hor istaagay arrintaas ma aanan weydiin xamaasadu aysan qaadin Soomaali waxay tiraahdaa ilka abeeso hoosta ayay ka xiriiraan waxa ka soo bixi doona lama ogaba in warbixinta aan sugayno maanta 12 bishan October oo maanta ku beegan warbixinta aan sugayno wax ka duwan inay soo baxaan ba suurtagal ah lama oga wixii ka soo bixi doona halka walow Kenya ay cabsi badan qabto oo ay sheegaysa anaga kalsoonidii aan ku qabnay maxkamadda waan kala laabanay xitaa aqoonsigii baan kala laabanay oo anagu qayb kama nihin maxay hato xukunka ka soo baxana kuma qanacsanin walow dawladda Kenya ay tiri haddana waxa soo bixi doona lama oga ilka gaalo hoostay ka wada xiriiraan inagu dhalinyaro
sabab yaanan u noqonin gabdha Soomaaliyeed niman madam qadayaal ah in si bilaash ay ku dhibaatayaan maanta gabdhaha Soomaaliyeed ee waxa weeyaan sharafta leh dalkoodii bay ku badbaadi laayeen dalkii iyagu ay u dhasheen oo ku wax barteen oo ay ku barbaareen bay ku badbaadi laayeen oo manaxa Soomaali sheeganaya oo 24 saac ku dhibaateynaya soo marka tan ayaan dhibaato iyo ugu horseedin oo aan dhihin intaan dibad baxno oo dawladda Kenya ku dibad baxana inagoo muujinayna farxadda maxkamadda Hague ay soo saartay oo halka aan ku dibad baxno oo calamo la soo wada baxno dhibaatada halka ka dhacda yeysan u horseedin gabadh Soomaaliyeed oo markii horeba dalkeeda ku dhibaateysneed in halkaasi bilaash lagu dhibaateeyo yaanan u horseedin in gabadh Soomaaliyeed gurigeeda inta lagu dhaco lagu dhibaateeyo yaanan u horseedin aabba Soomaaliyeed oo quutulyoonka caruurtiisa la daala dhacaya biilka magaalada uu ka doonanayo yaanan ka hor istaagin ardayga Soomaaliyeed ila waalidii fara badan oo Soomaaliyeed qurbaha ka imaada jirta oo wadanka Kenya gaar ahaan xaafadda Islii ee Soomaalidu u badan tahay degan oo waxbarasho caruurtooda u keensaday baa jira oo ayagu mudaharaad iyo orod aanan tabar u hayno caruurtoodii gaalada kala soo cararay oo yaa maciin u soo orday yaa laga hor istaagin in iskuuladii casharadu ay ka baaqdaan yaa laga hor istaagin macalinka quutulyoonka raadinaya ee raba inuu isagu ardayda quutulyoonkiisa ka soo dhacsado yaa laga hor istaagin shaqadiisa haddii badda Soomaaliya loo xukminay alxamdulillah haddii aan loo xukminna hadda waxa way waxa halka ka soo baxayo in dheergaradooda baa wada ogaa ilka abees inay hoosta ka wada xiriirana waa la wada ogyahay waxaan idin kula dardaarmayaa dhalinyaro in arrintan aad ka qayb qaadano farxadaada calooshaada ku hayso maalinta ay kuu suurto gasho banaanka la imo laakiin xaaladii hadda ma joogtid waayo dawlad aad ku hoosnooshahay oo sharci aadan ka haysan oo laga yaabo hadii lagu qabto sharci la'aan inaad tahay baan ku dibad baxaya aqliga diidaya arrintan ka fiijignaano biidin ilaahi kareem aad baa u mahadsantihiin muuqaalku waa ila dheeraaday ilaahi subxaanahu wa ta'ala waxaan ka baryayaa in war farxad leh oo aan ku farxno haddii aan nahay dadka Soomaaliyeed oo u dhuuntaagayay oo u dhigraaricinayay maxkamadaas waxa ka soo bixi doona ilaahi subxaanahu wa ta'ala wixii soo baxa maanta wax farxad la ilaahi subxaanahu wa ta'ala hay inooga dhigo aad baan u mahadsantihiin faatixada meel walba laga soo akhriyo adiga oo faraxsan farxadaadana qarso caloosha ka farax markaad warbixinta maqasho yes hoosta ka dheh laakiin ha badboodin oo inta soo qaadato duulaan markii horeba adiga ilaahi subxaanahu wa ta'ala ka sii jeediyay ha isku soo jeedin waayo xaafadda Islii ee Soomaalidu degto xaafadaha ku hareeraysan waa la wada ogyahay xaafadaha isku raranka waa la wada ogyahay haddii ooda laga qaado wallahi baan ku dhaartay waxa ay sameynayaan adiga dibad baxa ku baaqay waa dareemi kartaa soo marka insha Allah ta'ala dhigta aan raaricino faatixada amarno war farxad laban insha Allah ta'ala rajeynayna laakiin farxadu inta naga badato yaanan u horseedin hooyooyinka Soomaaliyeed oo hantidooda dhan Islii ay dhaxtaal yaanan horseedin in dhibaato ay soo gaarto aad baan u mahadsantihiin muuqaalku idinku dheereeyay intaan kalamada dib isugu soo laaban doono waxaan idinkaga